dadka cudurka waalida qaba ee ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood ayaa waxaa la soo gaarsiiyay deeqdan oo ahayd tii ugu ballaarnayd oo la soo gaarsiiyay dadka xanuunada waalidu ay asiibeen ayaa waxaa qayb weyn ka qaatay soo ururinta deeqdani Maryama Yuusuf Awnuuriye gabdhaheedu ay ka soo ururiyeen gabdhaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan West London ee cariga Ingiriiska deeqdan dadka xanuunsan ee ku nool gudaha magaalada Laascaanood ayaa waxay gaadhaysay waxaana la siiyay lacag gaadhaysa $2,500 deeqdan ayaa waxaa loo soo wakiishay Sheekh Aadan Weli oo culimadiinka gobolka Sool Sheekh ayaa wuxuu sheegay in caawimadani ay ka faa'iideysan doonaan dad gaadhaya 45 qof oo qaba xanuunada waalida oo kala duwan iyagoo isugu jira dad waayeela dhalinyaro iyo haween waxaana si weyn ay indhaha ugu soo jiidanayaan goobaha dadka lagu daweeyo markaad booqato xanuunada waalida ay dadku qabaan oo noqotay mid si weyn looga dareemo gudaha magaalada Laascaanood oo qoys kastaaba wuxuu la ildaran yahay raxan dad waalan oo ay guryaha ku haystaan qaarkoodna ay aad u cuni jireen qaadka iyo maandooriyaha taasina ay sababtay gaatada iyo faqriga faraha badan ay ku cunaan qaadkaasi inuu qofku sababo inuu waasho dhanka kale waxaa jira tiraha weyn oo iyaguna ka mid ah dadka waalan oo deeqdani la gaarsiiyay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Aadan Weli deeqdan siyaabihii ay dadka u kala gaarsiiyeen iyadoo mikrofoonka la tiigsanay qaar ka mid ah dadka xanuunsanaya ee qaba xanuunada waalida oo aan ku booqanay xarumaha kala duwan ee lagu daaweeyo dadka waalan aan suuragal ahayn dadka walwaalan ama fiskoodu san caadi ahayn meel la isugu keeno oo ay kala firqsan yihiin ayaa waxaan isku daynay markaa in kamid ah aanu soo duubno sida qaarkood meel ku silsiladaysan ayaanu soo duubi doonaa haddii ilaahay idmo waxaanu kala dadka ogeysiinaynaa dadka muslimiinta inaanay intaasi waxba ka kafaynin oo raas keliya laga yaabaa marka dadka gobolka Sool deegaan la eego raas qura ayaa laga yaabaa dadku inay waalidiisu inta ka badato 45 qof ay ka sii badato marka waxaan xusuusinaynaa inay arintaasi baraarujinaynaa inay arintaasi noqotay mid dadka ku baahsan siiba laba dhibaana keenay inta badan qaadka oo dadku ay ku waashaan inuu waali fara badan isaguna keeno dadkii marka meel lagu daweeyo ama daroogadi lagaga baaro aysan ahayn ayaan haysan waxa kale oo waalida keenay dhaqaale yarida oo qofkii marka uu xoogaa isla hadlo xoogaa u dhaqaale waayo u waasho taasna way keentay dadka marka Soomaaliyeed dhibaatooyinka waxa ku keenay labada arrimood baa ugu badan waalida arinta muxaadaraadka sida qaadku ugu sii horeeyo qofkii markuu hurdo waayo uu isla hadlo oo qaadka in badan ku soo jeedo inuu waasho iyo in marka waalidu ay ku noqoto dadka qaarkood si marka isla hadlaan sida dadka loo taxamulka iyo sabirka yar yahay in dadka qaar waasho waxa marka waalidu u badanaysa rag oo dumarka aan qornay waa yar yahay oo aan lacagta wax ka siinay waxaana keenaya dumarka waalidoodu ma badna waayo dumarku ragga had iyo jeer way ka aqligoodu sida ay raggu dunya u raadinayo ugu wareeray ma aha muxaadaraadka qaadka iyo qurunkaana dumarku say ma isticmaalaan markaas daraadeed baa waxa keenaya inay dumarku waali fara badan yeelaan waliba gobolkan oo ka sii liito oo dayactir cid haysa u hayso nafli aysan jirin oo meel lagu xanaaneeyo gaar dadka aysan u furnayn ilaahay waxaan ka baryaynaa lacagta $2,500 ah gabdhaha soo dhiibay ilaahay inuu khayr ugu bedelo acmaashooda miisaanka aakhiro ugu daro ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr ku abaal mariyo bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waa cilaajka daaru dawaa oo uu Sheekh Cali mas'uulka ka yahay marka insha Allah ta'ala waxa ku xiran dad badan 12 qof meelahaas gaaraya oo dad walwaalan marka 6 kamid ah maadaama dadka wax loo gaarsiin karin ayaan Cali Xasan idle ayaa Sheekh Cali mas'uulka ah marka Sheekh Cali waan ku wareejinaynaa 6 soo waaya wala hada hada wala ila shay waa garbaha inta saari oo saddex wax weyn marka wada waa iska dareema marka iska dareema سيدنا كيعو قاعمين ما قصانه وما الساعه كمارتي با سو فرسنه ما انا تنكفرنا بقول انه انت كوين مويان يا حنو في اللي هو انا بيتس انصب بس نوع واحد كلمات واقفه حتى السدات يا مركي دوي هسه دويش عوار
كور هذه سهل وهي أكلت حضرة اللي نفري طبيعي كرسي قرتي حنوصنتها انتي لك بهلك كجرت waxaan ku jiray bil baad ku jirtay iyo wax la tiraha ama bil baad ku jirtay hadda sidaad iskaga gartay inta cilaajka ku jirtay waladana ladanta marka hore iyo hadda ka hor hadda fiicanahay waad fiicantahay Cabdikariin Nolol S24 TV magaalada Laascaanood ee gobolka Sool